waxaan ahay maxamed cilmi dhicisow qiblada u hoggaansan oo qir oo u sujuud ilaah qallaynka ogow salaad sakada qayb u dhiib bil soonquud lama cunee qaadoo amarrada addeec qumane weligaa ahaw markaa xajka qaabil oo khushuuc la imow wanaag qof baad noqon qiimo leh dhashay dhulka carasanka dhulka tigaadda dhulka daaqa iyo dalaga dhulka loo yaqaan dullo ama cadduun dhulka jicibka iyo gudda haddii aan si kooban u idhaahdo waxaan ku dhashay duleedka magaalada Moqokori. When you walk away socodka laafiyaha ku laran my eyes are looking at you sidii seerna weydadii and if you leave me alone saboor baa igu dhaca the soul is not secure waxaan ku sigtaa gariir at night I always awake sariirtan diidaya because I don't sleep dartaabaan seelanaya suugaantii anigu walaalo ayaanu nahay waxaan ka beermay bulsho afka hodanka ah bulsho reer guuraa ah bulsho reer miyi ah bulsho tix iyo tiraab leh bulsho lagu magacaabi jiray bulshadii gabayga isla markaana waxaan ku dhashay dhul ciyaaraha iyo dhaqanka laga barto dhul aan dhaqamada shisheeye gaarin ee dhowrsan dhul eray bixinta dhirta laga helo dhul eray bixinta xoolaha laga helo dhul eray bixinta deegaanka laga helo dhul eray bixinta suugaanta laga helo dhul eray bixinta afka Soomaaliga laga helo dhulkii gabayga iyo gabyaaga noloshayda waxa gidaar ku ahaa ama ku xeyndaabnaa geediga iyo geshiinka sahanka iyo socdaalka awrka iyo dhaaminta geela iyo goobista guga iyo jiilaalka abaarta iyo aaranka roobka iyo rajaynta dhammaan noloshaasi waxay ahayd mid dhaqan ku dhidban mid aan TV lahayn mid aan computer lahayn mid aan mobile lahayn waxay lahayd caweysyo lagu kulmo oo jiib iyo jaamba leh oo qofka tagaahi uusan u baahnayn in uu jiim aado kana barto dhaqanka ciyaaraha suugaanta afka iyo ereyga hawl kasto waxa ay lahayd suugaan u gaar ah kana mid ah nolol maalmeedka caadiga ah kolka xoolaha la shubayo iyo kol kasta oo hawl la qabanayo waxa jiri jiray heeso hawleedyo lagu mashquulo sidaana waxa ku xafidnaa dhaqan aan qornayn balse ku kaydsanaa maskaxda iyo maanka dadka adduunyada tabaaliyo taah iyo dhibaatiyo tafantoof lugooyo taakh lagama waayee axad yahow tallamayaa ruux yahow tigtigayaa wax ku dhaafay haw turin haw tabaryaraynoo haw tiicin weligaa niyaddaada haw tabin dhaqanku wuxuu ahaa afka afkuna wuxuu ahaa dhaqanka ciyaartu waxay ahayd dhaqanka dhaqankuna wuxuu ahaa ciyaarta suugaantu waxay ahayd dhaqanka dhaqankuna wuxuu ahaa suugaanta aalaaba waxa la iska ilaalin jiray wixii dhaqan xumo ah ama dhaqan dooris ah adduunyadu waa wareeg ayaamiya wayska wiig wegere waa saacadiyo daqiiqada wada ordaa mar bay ku tahay wadaay mar way ku wareerisaa mar way kaa wada tagtaa mar waa ku waasax iyo walaala midaa tihiin mar waaxyay kaa jartaa waswaas bay kugu riddaa walaahow iyo la yaab warkuna waa kooban yee waanada qaatoo dad yahow salaadaha waajibkiyo waysada ku arooro oo allah weynee baryaha aniga oo kuray ah ayaa la i keenay magaalada Buulabarde halkaa oo aan quraanka ka bilaabay amaba nolosha qaybtii labaad aan ka bilaabay maalintii koobaad ee aan magaalada imid isla markaana habeenkii seexday ee aan hurday maalin labaadkii aanan qaban wax hawl ah aanan halihii iyo geelii raadin ee aan goobin aanan ratigii iyo awrkii dhaamin aanan socon oon socdaalin aanan meel la aadin waxaa i bararay ama i fuuray cagaha waxaan mooday inaan paralyze noqon rabo
nolosha magaaladu waa mid qabow degan oo aan harjad iyo howlo badan lahayn raggu aalaaba turub iyo dublad ayay ciyaaraan qaarna qaad iyo sigaar ayaa nolosha ka tuuray qaarna filimaanta soo galooti ahaa ayay daawadaan anigu waxaan u arkayay maalayacni waayo nin raga oo weyn oo dani ka dhacdo waxaa kuma mashquulo dowladaha quuta iyo quruumaha oo u baxo annagay nagu soo qufaan iyana qayb kama cunaan ujeeddada qaawanina su'aal weeyaan qarsane qaadkoon diidnaa ka wacan annaga oon qiil heleen in aan qarash gelinna ee war hooy ma isqaban karnaa buulo barde 2 sano kadib noloshayda qaybtii saddexaad waxaan joogaa magaalada Nairobi waxaan ahay arday isla markaana dhul qabow iyo qurbo iyo nolol cusub ayaa ii bilow ah Nairobi kama aanan helin ool oratan iyo bootin la ciyaaro isla markaana ma ayna lahayn caweysin wilasaqo waalo ama ciyaarihii aan aqoon jiray taa beddelkeeda tog ayaa rogmanayay oo dhaqanku aad ayuu u kala fog yahay suugaantu wax ay ii noqotay udub dhaxaad tiir ah ee aan ku taagmo waayo wax badan ayaan ka dugsaday kolka aan sameeyo gabay qaadka iyo daroogada la dagaalamayo naftaydu kuma dhacdo in aan anigu qayilo kolka aan sameeyo gabay waajibaadka isaaran ee diiniga ah ka hadlayo naftaydu kuma dhacdo in aan dayaco waajibaadka kolka aan sameeyo gabay dhiirigelin iyo wacyigelin ah aniga ayay durbaba fariinta ugu soo noqotaa salaaduhu waa rugniga ruuxiye eebbe isku xira rukuucdu hadday saxneen adaa ku rafaadayee aakhira kuma rarantiraan sidoo kale suugaantaydu in ay saameyn bulshada ku samaysa ayaan u arkaa oo fariimo aan ku faarxo ayaa ii yimaado haddii aan tusaale sameeyo maansada buufis galab baa aniga oo masjid ka soo baxay rag dhalinyaro ah oo masjidka igula dukanayay iga soo daba ordeen aniga oo dabaq sii korayo iyo iyaga oo ku qaylinayo buufis deedna jaranjartii ayay igu qabteen oo istaajiyeen wiil ka mida ayaa qiso iiga sheekeeyey sababta uu ilaa iyo mar kastaba uu u dhagaysto maansada buufis oo uu u daawado isla markaana aan mobilkiisa looga waayin waxa uu ii sheegay in xaaskiisu ay diiday in ay Afrika ku sii noolaato ay sii joogto waxa ay goor kastaba jeclayd Yurub iyo Ameerika in ay aado oo ay gasho balse markii uu helay maansada buufis ayay ka diga rogatay arrinka buufis diris ma noqoteen tuu beerka kaa degay beledkaa ma kaa raray ma ku geeyey guuriyo xero qaxati sidoo kale maansada xijaabo waxaan ku farxaa marka ay gabar Soomaaliyeed igu tiraahdo maansada darteed ayaan xijaab u soo iibsaday maansada ayaan noloshayda bedeshay maansada ayaa sababtay in aan xijaab xirto xijaab ka qaado adduunyadu way iska xaale xiisadoo yaan lagugu beerin xumaanta lagu horseedin xanfarkuu yow kula dhaqaaqin gobbaad tahay xidida weyne xasiri imaankaaga xooggan dhanka kale ardayda iskuullada ayaa iyaguna iga codsado in ay mar walba maansooyinkayga iskuullada iyo munaasabadaha ka soo jeediyaan waa tijaabooyin muujinayo in ay bulshadu aqbashay iyo in kale qaybaha aan ka maansado ee suugaanta Soomaaliyeed waxaa ka mid ah godka gabayga geeraarka saarka jiiftada iyo kuwa kale isla markaana suugaanta waxaan u adeegsadaa wacyigelin bulsho soddon gobol miyaan suubsannaa saacaddaan joogno siday tahay bamaandeeq miyaan cadow ku sooriyeyni calankeenii saaraa miyaan siibii gebigiisba sumcaddaan la heedayo miyaan seedna sharaftiiba sadrigayga kuma aana qorin kala socdaalkeene soomaalidu mid weeye war hoy saaxada ogaanay
2008 sagaalkii waxaan xubin ka ahaa wargeyskii xiddigta ee ka soo bixi jiray magaalada Nairobi 2010kii ayay ahayd kolkii aan xubin ka noqday naadigii hadaf ee fanka iyo wacyigelinta oo ay ku mideysnaayeen dhalinyaro suugaanyahano iyo saxafiyiin isugu jiray kadafkii wareeriga keliyaha naga kabaabayo kudkudaha dharkii noo dhex galay kabadda hoosteeda kaarkiyo xanuunkiyo kulkaan koboca noo dhiiday innaga isu keennee warhoynaguma kooyeene bandhig dhaqameedyo suugaantayda ah iyo kuwo aan iskaashi ku ahayn hal abuurro kaleba waan ka qayb qaatay suugaanyahano Kenyaan ah iyo kuwo kale oo ajnabi ah ayaan xiriir iyo wada shaqayn yeelannay annaga oo dhaqamada kala duwan iyo suugaanta afafka kala duwan si wada jir ah u soo bandhigi jirnay barnaamijyada oo qaarkood ay bilo ahaayeen ama bilo ay noqdeen. Vijana wenye talanta mbalimbali kutoka kaunti za Uasin Gishu, Nandi na Elgeyo Marakwet walikusanyika mjini Eldoret kama njia moja ya kuzileta pamoja talanta hizo ili kutafuta wahisani watakao wawezesha kujiendeleza. Garadi huu talamaya. Mimi na feel kama nina kamsupa hapa kama nikufa. Otsiki tabu nataka nikupatie mistari ya kiwala leo. Ipekele wadayo. Mrembo mzee kuna venye umeni. shaqeeyo ayaa siyaabo kala duwan aan ugu beeray oo aan ilaa iyo iminka qaarkood ka mid ahay. 2014kii waxaan gudoomiye u noqday kooxdii fanka iyo suugaanta ee Hillaac oo ay ku kulansanaayeen inta badan fanaaniinta Soomaaliyeed ee Kenya inkasta oo aan markii dambeeto heesihii aan qori jiray isaga haray ka hanuunay heesihii ka haroo ka haajiray kana haaday gebigood wax aan kaga hadleeyahay daraasada aan soo helay aan ku hingaadshe heesuhu sidoodaba habaar waalid mooyee hibashiya xaq dhowr ma leh ka hardiinta mooyee hagaag iyo wanaag ma leh marmar haaba mooyee salaadaha haleel ma leh. suugaantaydu in ay faafto waxa qayb ka ahaa idaacadaha oo waraysiyo ila yeeshay amaba baahiyey oo aan qaar ka xasuusto sida Radio Ergo, Star, Risaala, Hiiraanweyn, Dalsoor, Som News, Kalsan, Somali Channel, VOA, BBC, Barkulan, RTN iyo barnaamijkii nala fiidso ee Universal iyo TV-ga qaranka ee Aamina Muuse Weheliye iyo dhowr TV ee Kenya sida KBC iyo Citizen TV. Kuna shairi ambao tukipenda kuweza kupata shairi thinking about you adaan ku curshaa gabay and you mean much to me cidla ma amaane you are the love of my life aashaqayga baa tahay the smile of my face cod haboon wanaagay I love you so much. sidoo kale baraha bulshada ee internetka ayaa qayb ama door ka qaatay in ay suugaantaydu faafto sida mareegaha Soomaalida YouTube, WhatsApp iyo Facebook. aadmiiho warkaygiyo u dhug yeela erayada xigmad lagu aglooliyo murtibaa ku owdane ha ka daalinee arag ha ilaawinee dhuux ka shallaabta ku adkay aas ka dhiga abid. suugaantu waxa ay ku qurux badan tahay marka ay diin huwan tahay qofka suugaanyahanka ahi ma tooso haddii uusan diinta ku tiirsanayn ninka suugaanta sameeyo ee isla markaana aan salaada tukan ma ahan hal abuur ee waa qof nusan waayo waxay ahayd in uu eebbe ugu dhawaado hibada la siiyey waayo suugaantu waa hibo aan cid walba la siin ani ahaan kolka laga reebo maaweelo iyo madadaalo waxaan isku dayaa in aan u adeegsado suugaanta fariin wacdi waano iyo wax sheeg ah oo aan naftayda iyo naf walba oo aan is afgaranayno wax ugu sheegi karo. naftani waaraanti ma leh ninkii shalay wiil ahaa wadaamaha saarsan jiray cidna aan ka waaban jirin maantuu waa yeelyaho muruqi weydoobayo itaalyari wiiqdayo wixii u haraa yar ee waanada qaatoo dadyahow salaadaha waajibkiyo waysada ku aroora oo ebbaaweyn ee baryaha. haddii ay jiri lahayd cid aan is afgaranayno oo aan ku soo islaamin karayana waan ku soo islaamin lahaa.
إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. bini aadamku diin ayuu u baahan yahay si uu bini aadam u ahaado haddii kale waa ulaa'ika kal ancaami bal hum adal dhakhtarku diin ayuu u baahan yahay si uu dhakhtar buuxa u noqdo macallinku diin ayuu u baahan yahay si uu macallin ama bare buuxa u noqdo ganacsadahu diin ayuu u baahan yahay si uu ganacsade buuxa u noqdo abwaanku diin ayuu u baahan yahay si uu abwaan buuxa u noqdo maxaa wacay aakhiro dhaqan baan ka shaqaynayay la iska ma yeelayo marmarsiinyana ma noqonayse waa in diintana laga shaqeeyo adduunyada inta la joogo cimrigu waa dhowr sano wakhtigu wuu cararayaa cibaado haddaadan hayn caqiidadu kuu saxnayn cadaabbaa kuu xigtee cindiga weligaa ku hay soomaalidu mufti ayay lahayd buuni ah wuxuuna ahaa muftiga abwaanka isaga ayaa khilaafaadka xallin jiray heshiisyada ka shaqayn jiray xaajooyinka geli jiray waagii dambe waxaa soo beeray muftiga shiikha ama wadaadka hadda laba mufti ayaynu leenahay isma diidayaan muhiim waa in dhaqanka wanaagsan ee suuban iyo diinta laga shaqeeyo si adduunyada bidixda loogu qabsado aakhiradana midigta loogu qabsado rimaya geel wiil heliyo riyaha ari kii dhaqdiyo sacaha kii raacda iyo rafaadkay noloshu tahay xag rabbi way siman yihiin balsena waxa roon ka helay midkii raatibay wakhtiga ribada ka fogaaday ee ridoobina mu'minee rukuucda ku raaga ee rabbigii raalliya gelshe